ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع aynu ka hadlayno haddii ilaahay raalli ka noqdo subxaanaه wa tacaala waa mowduuc alxayaa. alxayaa oo macnihiisu uu yahay xishood. macnaha xishoodkana culimada islaamku markay qeexayaan erayo isu dhow ayay ku qeexaan. xaafid ibn xajar raxmat ullaahi tacaala calayh waxa uu soo naqlinayaa fii kitaabihi fatxi اlbaari in lagu magacaabo xishoodka inuu yahay macnihiisu ama lagu tilmaamoba wax qofka bini aadanka u diidaya inuu ku dhaco shay, wax bini aadanka u diidaya ama ka cabsi gelinayaba inuu ku dhaco shay aanan habboonayn. imaamu ljarjani isagu wuxuu odhanaya saaxibu luga raxmat ullaahi tacaala calayh, waxa weeyaan nafta oo hakasho ay gasho, nafta oo hakasho ay gasho, taasoo waxay ka hakanaysaana ay noqoto wax aanan wanaagsanayn ku dhicitaankiisa. waxay dhibsanayso aanan wanaagsanayn ayay naftu ka hakanaysaa. macaani noocaas oo kale oo isu dhow dhow ayay culimmada islaamku ku magacaabaan, sida raaqib alasfihaani ninkii loo ohan jiray isna luqawiga ahaa iyo kayrkiisaba. waxay odhanayaan waxa weeyaan inqibaad الnafs, nafta oo laga xabiso oo laga celiyo can اlqaba'ixi wa tarkiha, waxyaabaha qabiixa ee foosha xun iyo ka tegiddeedaba. xishoodkana sidiisaba waxaa ugu filan sharaf iyo wanaag, waxaa ugu filan inuu yahay sifa min sifaa'it اllahi jala wacala, sifa min sifaati اllahi jala wacala, taasoo ah tilmaan ilaahay tilmaamihiisa ka mida subxaanaه wa tacaala. ilaahay baa ku sifoobay inuu yahay mid xishood badan. ambiyada iyo rususha alle ayaa ku sifoobeen inay yihiin kuwo xishood badan. addoommadii ilaahay wan wanaagsanaa oo dhan ayaa ku sifoobay inay yihiin kuwo lagu tilmaamay xishood. intuba waxa ay ku sugan tahay bilkitaabi wasunna. rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid ay warinayaan jamc min aلصaxaaba ridwaan اllahi tacaala calayhim ajmaciin. xadiidkaa waxaa warinayay imaamu axmed fii musnadih bni abi shayba fii musanifih, abu daud tirmidi ibnu maajahna waa soo saarayaan, bazaarna musnadkiisa ayuu ku warinayaa, xaakimna mustadragiisa waana saxiix yeelay. imaamu dahabina waa ku waafaqay. sheekh naasir raxmat ullahi tacala caleyh fii silsilati alaxaadiid asaxiixa ayuu isna ku saxiix yeelayey, iyo jaamic sagiir iyo mukhtasar alculuwi, dhammaan kutubtaasoo dhan wuu ku saxiix yeelaya sheekh naasir raxmat ullahi tacaala caleyh. waxaa laga warinaya waa salmaan alfarisi radi allahu tacaala canhu wa ardaah, ayaa wuxuu leeyahay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi ayaa wuxuu yidhi ina rabbakum xayiyun kariimun. war hooyi rabbigiin, inagu nala hadlaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam, war hooyi rabbigiin waa rabbi xayiy ah, kaiir alxayaa, xishood badana ah. alle subxaanahu wa tacaala waa alle aada u xishooda jala wacala, waa alle kariim ahoo qiime iyo wanaag iyo sharaf iyo gacan furnaanba lagu yaqaano. muxuu nabiga inoo soo wadaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh? hadalkaasi xaggee hordhac u yahay? wuxuu hordhac u yahay oo uu nebigu soo wadaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh min xayaa illaahi jala wacala
ilaahay xishoodkiisa waxaa ka mid addoon gacmaha u taagay inuusan ilaahay kuba soo celininba ilaahay wuxuu ka xishoonayaa ina rabbakum xayiyun kariimun rabbigiin subxaanahu wa tacaala waa alle xayiyi xishood badana yastaxyi an yabsuta alcabdu ilaahay wuxuu ka xishoonayaa addoonkiisa haddii uu u fidiyo yadayhi gacmihiisa ilayhi xaggiisa u fidiyo an yaruddahumaa sifran iyadoo maran inuu ilaahay soo celiyo waa ka xishoonaya subxaanaه wa tacaala idan xishoodku waa sifa min sifaati اllahi jala wacala waa tilmaan ka mida tilmaamaha ilaahay subxaanaه wa tacaala xadiidka xadiid la mida anas bnu malik iyo cabdullahi bni cumar iyo kayrkoodaba saxaabada waa laga warinaya ridwaan اllahi tacala calayhim ajmaciin sida aan soo tilmaanayna waa xadiid ay warinayaan jamc min aلصaxaaba waa sifa min sifaati اllahi jala wacala ilaahay wuxuu ka xishoonaya subxaanaه wa tacaala waa alle xishood badana waxyaabaha noocaas oo kale addoonkiisoo gacmaha kor ugu taagay oo bariyey rabbinimo addoonnimo muujiyey in rabbi loo yahay muujiyey dacfi muujiyey tadallul iyo tamaskun muujiyey gacmaha kor ugu taagay inuu ilaahay soo celiyo subxaanaه wa tacaala iyagoo maran waa ka xishoonaya hadduusan la imanin addoonku asbaabo lagu soo radiyo maxaa yeele axaadiid kalea tilmaamaysa iyaduna sida xadiidkii abu hurayra radi allahu tacala canhu ardaa fi saxiixi muslimi wagayrih nebigu ohanayay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh uma dakara xadiid dheer buu ahaa uma dakara arajula yuطiilu الsafra ashcaثa akbar yamudi yadayhi ilى الsamaءi yaqulu ya rab wmaطcamhu xaraamu wmashrabhu xaraamu wmalbasuhu xaraamu wagudya bاlxaraami faana yustajaabu lah kaasoo kale waa la soo celinaya shaki male maxaa yeelay sababtii ilaahay ku aqbali lahaa isagaa iska hor istaagay laakiin qofka kale ee gacmihiisa kor u taagay rabbi inuu soo celiyo waa ka xishoonaya subxaanaه wa tacaala macnuhu waxa weeyaan ilaahay subxaanaه wa tacaala dhanka kale aayadaha qur'aanka siday ina tusinayaan markii laga soo hadlay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ina dalikum kana yu'di الnabiya maxaa la yihi fayastaxyi wallahu maxaa lagu soo xijiyey dabadeedna laa yastaxyi min alxaq wixii xaq iyo bayaaninteeda iyo caddaynteeda ilahay ka xishoon maayo subxaanaه wa tacaala lakiin wixii intaa dhaafsiisan ilahay waa ka xishoonaya subxaanaه wa tacaala xishoodku marka waa sifa ay adyaanta oo dhan xishoodku waa sifad iyo tilmaan ay adyaanta oo dhan kala dhaxleen diin walba iyo nebi walba ummaddiisa u dardaarmayey nebi walba uu ummaddiisa u dardaarmayey oo uu lahaa war ilaahay subxaanaه wa tacaala ka xishooda war xishoodkii nebi walba saasuu ku celcelinayay taana waxaa inoogu daliila xadiidkii nebiga calayh الsalaatu wasalaam fi صaxiixi اlbukhaari aslan wuxuu ku sugan yahay fi musnad اlimaam axmed wamusanif bni abi shayba wagayrihim صaxiix اlbukhaarigana waa ku sugan yahay abi mascuudin cuqba bni camrin alansaariyi albadriy radia allahu tacala canhu waardaah ayaa wuxuu odhanaya rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayaan maqlay isagoo odhanaya ina mima adraka الnaasu min kalaami الnubuwati اlأuulى إida lam tastaxyi faصnac ma shiئt ina mima adraka الnaas waxa ay dadku ka soo gaareen oy ka soo haleeleen min kalaami الnubuwati اlأuulى ambiyadii hore warkeeda meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa shay la kala dhaxla inuu ahaa diin walba inay ummaddeeda u bandhigi jirtay iyo nebi walba inuu ummaddiisa u bandhigi jiray inay ilahay ka xishoodaan subxaanaه wa tacaala inay xishood la yimaadaan ina mima adraka الnaas min kalaami الnubuwati اlأuulى إida lam tastaxyi faصnac maa shiئta haddaadan xishoonaynin yeel samee waxa doonto wax ku xayiraya male xadiidkan isaga marka daabitkiisu waxa weeyaan uu tilmaamaya nebigu salawaatu اllahi wasalaamu calayh xishoodku waa kan xayira ee u diida qofka wax allaaliya waxaan ilaahay raalli ka ahayn subxaanaه wa tacaala waa kan qofka ku keena inuu u degdego wixii ilaahay raalli gelinayo subxaanaه wa tacaala ina mima adraka الnaas min kalaami الnubuwati اlأuulى ambiyadii hore warkeedii waxa ay dadku ka dhaxleen waxaa ka mida إida lam tastaxyi haddaadan xishoonaynin fasnac maa shiئta samee waxaa doonto xadiidku marka wuxuu ka kooban yahay waxa weeyaan tilmaamis la inoo tilmaamayo ummadihii hore shayga ay kala dhaxleen ilaa iyo ummaddeennan dhanka kalena qeybtiisa u dambaysana waa waciido waxa weeyaan إida lam tastaxyi fasnac maa shiئta goodi iyo cabsigelin weeyaan qofka aanan xishoodka lahayn loo goodinayo qofka aanan xishoodka lahayn la cabsigelinayo
qofka aanan xishoodka lahayn waciid weeyaan tahdiid la hadadayo la leeyahay haddaadan xishood lahayn ilaahay ka furatay subxaanahu wa tacaala ilaahay adiga waxba isuguma keenin jiraan ilaahay adiga isuma dhoweydiin subxaanahu wa tacaala is-ilaali la leeyahay marka xadiidkan wuxuu u daliil yahay marka in ambiyadii hore dhammaanteedaba ay dadkoodii u dardaarmi jireen oo ay odhan jireen ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xishooda anwaacda xishoodku ka mid yahay waana ugu horeeya xishoodka ilaahay subxaanahu wa tacaala imaam ibn alqayim raxmat ullahi tacala calayhi fii kitaabihi madaarij الsaalikiin markuu tilmaamayey ilaa wuxuu tilmaamaa qaybaha xishoodka in loo qaybiyo culimmadu ay u qaybiyaan ilaa 10 nooc waxa ugu horeeyana waa xayaa min allahi jala wacala waana kan nebigu ina amray salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin asalka hore waxa loo qaybiyey waa 2 qaybood sida xaafid ibn xajar raxmat ullahi tacala caleyh ku tilmaamaya fii fatxi ilbaari isagoo oo ka soo naqlinaya imaam almanaawi raxmat ullahi tacaala calayh kayrkiisana way tilmaamaan culimmada islaamka dhammaantooda waxay yidhaahdaan alxayaa 2 qayb weeyaanoo waa qayb muktasib ah iyo qayb hariizo ilahay qofka uu ku beero qofna isagaa kasbada waa qayb aad kasbatid adigu qaybna ilaahay baaba kugu abuuray subxaanahu wa tacaala akhlaaqduuna ka mid yahay bal waa ugu horeeyaa sida axaadiista aynu arki doono nebigu ku tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiida cabdullahi bni cumar iyo keyrkiisaba sidaa darteeda ayuu xishoodku wuxuu noqonayaa marka mid diinta ilaahay oo dhan ku hareereysan sida nebigaba ku tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa muktasib iyo khariizo ilaahay abuuray subxaana wa tacaala qofka ku abuuray taa waxay la macno tahay asalkuna ay ku leedahay waa xadiidkii ninkii wafdigii cabdilqays la odhan jiray nebiga u yimid salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkii bukhaari iyo muslim ba ay warinayeen ee nebiga uu ku yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ina fiika khصlatayni yuxibuhuma allah waxaad leedahay 2 calaamadood oo ilaahay uu jecel yahay subxaanaه wa tacaala markaasuu wuxuu yihi rasuulkii allow cabdilashaj ninkii la odhan jiray rasuulkii allow ma ilaahay baa igu beeray subxaanaه wa tacaala mise waa midaan anigu leeyahay waxaan la imid oo aan kasbaday oo aan markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam maye waa midaad kasbatay weeyaan oo ilaahay ku siiyey subxaanaه wa tacaala idan xishoodku waa wax ilaahay qofka siiyo subxaanaه wa tacaala iyo wax qofku kasbada labadiiba waa noqon karaya walidalika culimada islaamku marka ay ka hadlayaan xadiidka ay sharxayaan aliimaanu 76 shucba aw 77 shucba oo aynu tilmaami doonno waxay yidhaahdaan iimaanka la tilmaamaya walxayaau shucbatu min aliimaan qeybta iyada ah ma kii muktasibka ahaaba mise waa kii khariizada ah maya waxaa la yidhaahdaa waa kan muktasibka ah kaasaa wuxuu noqonayaa qofku mid uu la yimaado dabadeedna waxay keenaysaa inuu khariizadii isu bedelo ilaa gayri dalik walidalik ayaa xishoodku wuxuu yahay marka haddaba sifa min sifaati اllahi jala wacala ambiyadii hore oo dhanna ummadahooda ay u dardaarmayeen rasuulkana calayhi الsalaatu wasalaam sifaatkiisuu ka mid ahaa xadiidka umina caaisha radi allahu tacala canha ayaa u daliil ah oo saxaabadu marka ay tilmaamayaan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bituruq mutawaatir ah dhammaantooda marka ay tilmaamayaan waxyaabahay ku sifayn jireen waxaa ka mid ahaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu yahay mid aada u xishood badan bal waa ka xishood badnaa bay yidhahdaan rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh gabadha maqabiyada ah ee aan weligeed rag arkin waa ka xishood badnaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ilaahay baana ku ishaaray subxaanaه wa tacaala ina dalikum kana yu'di الnabiya fayastaxyi waa idinka xishoonayaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aad buu u xishood badnaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kagayrihi min alanbiyaa nabiy llaahi muusa markii laga soo warramaya fii aakhiri suurati اlaxzaab ilahay uu nooga warramayay subxaanaه wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu nabiy llaahi moxamed baa inooga sheekeeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkii saxiixa ku sugnaa bukhaari iyo muslimba ee nebiguu tilmaamayey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh muuse wuxuu ahaa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam rajul xayiy ah sitiir oho is-astur badan xishood badana ah nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh reer bani israa'iil markay qabaysanayaan dharka intay dhigtaan baa meesha la wada geli jiray laakiin nebi muuse kalama qeyb qaadan jirin
كعرري جري وميل كلي أبو كقبي سنجري إلى أي شيء إسقارسيين ويرى هذا النبي موسى وحيابه يسكين قرينا يواف والحمائية عذر وقبضرت هذا وياه النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه مالنتي دم بيسقوا dhagax dul saartay dharkiisii qabaysanaya markuu soo dhameystay qabayskii uu soo baxay isleeyahay qaada dharkaaga dhagaxii baaba ka cararayba ilaa reer bani Israa'iil uu soo dhex istaagay arkay nabiyullaahi Muusa inuusan wax cudur ana qabin wax ceebana lahayn laakiin ay tahay sifo wanaagsan sifadan uu ku sifoobay oo ah asturka iyo xishoodka ilaahayna waa inoo diiday subxaanahu wa ta'aala inaan nabigeenna محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أن سيدا سوكلا سيدي نبي الله موسى الله دبي أنه ابنه لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا إذن هذا حشوتك وصفة أنبياء الله ندمان أي سيدا أو صفوا بين حشوتك وإيمانك سيدو إيه هاي الدين تبا وإيمانك قيب كم يتأهويان حديث أمهات ستة دمان أي ورينيان البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه حديث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان 67 أو 70 شعبة فأعلاها فأفضلها أنا لفظ كلا أرنيسي كلمة لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان نبي وحليه صلوات الله وسلامه عليه إيمان كان ودوري اللحدن أما دوري تضبات قيبوت وحا أسر يا أونا فضل قبضا وكلمة لا إله إلا الله كلمة ذويا وحا أقوه سي إيمان كان وعدي سنة وإمادة الأذى عن الطريق وضدي أول لقى هذا قشنك لقى فوقيه لأن الصواب تكون بحين يسقفك وحيابها باتها يا أهصب الإيمان والحياء شعبة من الإيمان حشود كنا وحير النبي صلوات الله وسلامه عليه وقيب إيمانك كمدة حشود كنا وقيب إيمانك كمدة ماشي المركة وحا كعد إيمانك إنه كمد يهي حشودك وقفك أنا حشود لهين إيمانك سوى ناقص قفك أنا حشود لهين وناقص الإيمان dhanka kalena waxaanu arki doonaa xadiis nabiga kaleey salaatu wasalaam oo tilmaami doona oo kullu yahay xishoodku waa diinta weeyaan diinta oo dhanba waaba xishood weeyaan sideedaba halkan marka waxa ka cad iimaankii iyo diintiiba inay asalku u yahay xishoodku inuu asal u yahay diintana asal u yahay iimaankana asal u yahay وقف كان حشودين إنه إيمان كيسو تامهين قف كان حشود لهين إنه إيمان كيسو تامهين ناقص الإيمان إنه يه قف كان حشود لهين ناقص الدين ويه دين تيسونا والناقص إيمان كيسونا والناقص لبدي ما نقصي باقلية سيدا درت هذا مركا قف كإنه إيمان كيسي كامل نقضاء تهي وحين للرادية أسبابها إيمانك كيني كريا إنه سروك عن أيتهي الحياة حشوتك كميدة بل ومقدمة ذويا انتصوا حديث والنبي كنت المامي صلوات الله والسلام عليك لدوان يسوقوا المامي يقرنا يا حشوتك إنه كميدي هي إيمانك حشوتك إنه كميدي هي إيمانك النبي كنت المامي صلوات الله والسلام عليه sidoo kale nabigu kaleey salaatu wasalaam waa u dardaarmi jiray asxaabtiisa inay xishoodaan waxa ugu horeeyana waa xishoodka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka hadii Ilaahay ka xishoodo inta Ilaahay ka soo hartay ee makhluuqa oo dhanna waa ka xishoonaya laakiin hadaadan Ilaahay ka xishoonin subhanahu wa ta'ala wixii Ilaahay ka soo harina ka xishoon maysid taa weeyana macnaha xadiidka inuu soo aragnay ee ahaa النبي قلت المامي صلوات الله وسلامه على أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا نحشوني سمع واحد طنت إلهي بعد كحشوني سوما وحي إلهي كصهر سبحانه وتعالى كحشون ميسد مرك النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مسعود غير كيسنا ولا قورياه عبد الله بن مسعود أيا وحو أرني رضي الله تعالى عنه وأرضاه maalin maalmaha kamid anagoo nabiga la joogna salawaatu allah wasalaamu alayhi ayuu wuxuu nagu yiri
istaxyuu min allahi xaqa alxayaa war ilaahay ka xishooda xishoodkiisa dhabta xishoodkiisa dhabta ilaahay ka xishooda subxaanaه wa tacaala markaasaan ku niri buu yidhi inaa lanastaxyi walxamdu lilah annagu waa xishoonnaa rasuulkii allow ilaahay baa mahad iska leh ilaahay baa mahad iska leh subxaanaه wa tacaala annagu waanu xishoonnaa rasuulkii allow walxamdu lilah markaasuu nebigu wuxuu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh laysa dalik war kaa loolama jeedo xishoodkan aad sheegaysaan ee aad leedihiin ilaahay baanu ka xishoonaynaa kaa loolama jeedo maxay ilahay saxaabadu waxay ahaayeen nebigaa baray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxay ahaayeen addoommada ilaahay kuwa ugu xishoodka badan abi muusa alashcari baa tilmaamaya abu bakr asidiiq baa tilmaamaya cuثmaan ibnu cafaan baa tilmaamaya caliy bn abi aalib baa tilmaamaya saxaabado dhan baa tilmaamaya ridwaan اllahi tacala calayhim ajmaciin xishoodka heerka uu ka taagnaa umina caaisha laga haya ridwaan اllahi tacala calayhim ajmaciin xishoodka saxaabada wuxuu ahaa mid aad iyo aad u sareeya haddana nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa ku celcelinaya wuxuu leeyahay ilaahay ka xishooda xishoodkiisa dhabta ah xishoodka dhabta ilaahay laga xishoonayo subxaanaه wa tacaala waa maxay markay saxaabadu yidhaahdeen waanu ka xishoonaynaa ilaahay xishoodkiisa dhabta ah nebigu wuxuu yidhi saa loolama jeedo ee waxa weeyaan xishoodka dhabta ah walakin man istaxyaa xaqa alxayaa qofka ilaahay ka xishoonaya xishoodka dhabta ah waxa weeyaan falyaxfad الra'sa wamaa waca madaxa iyo wuxuu hareereeyey ee weeleeyey inuu qofku ilaaliyo madaxii meeqaa ku yaalla xubnood indhihii baa ku yaalla afkii baa ku yaalla carabkii baa ku yaalla hungurigii baa maraya dhagihii baa ku yaalla xubno badan buu u weelaynaya waxaasoo idil waa inay ilaahay ka xishoodaan subxaanaه wa tacaala waxaanan xaq ahayn carabkaagu waa inuusan ku hadlin hadalka aad hadlayso waa inuu yahay hadal miisaaman man kana yu'minu biاllahi waاlyawmi اlآkhir falyaqul khayra aw liyasmut xadiidka fi صaxiixayn can abi hurayra radi allahu tacala canhu arضaah kiinii hadlaya ee damacsan inuu hadal ku hadlow khayr ku hadal ama aamu wax ka dhexeeya ma leh wanaag ku hadal khayr ku hadal ama iska aamus walidalika salafu hadihi اlumma markay tilmaamayeen waxay yidhaahdeen waxaanu aragnay 9 acshaar 10 marka loo qeybiya 9 dawadu inay ku jirto assukuut aamuska maxaa yeelay waxay dawo u tahay iimaankaaga waxay dawo u tahay miisaankaaga aakhirada waxay dawo u tahay diintaada waxay dawo u tahay adduunyadaada waxay dawo u tahay sharaftaada waxay dawo u tahay intaasoo shay aamusku qofku inuu iska hadlo oo tororog badnaado wax macno ay samaynaysa ma laha bal waa min asbaabi dukhuuli الnaar nebigana calayhi الsalaatu wasalaam xadiid صaxiixo inu tilmaami doonno ayuu ku tilmaamay salawaatu اllahi wasalaamu calayh alra'su wamaa waca madaxa iyo wuxuu weeleeyey oo uu koobay inaad ilaahay kaga xishootaan subxaanaه wa tacaala afkaaga inaadan gelinin wax ilaahay kaa xarimay subxaanaه wa tacaala wax xaraama inaadan cunin maxaa yeelay xalaashuna way caddahay xaaraamtuna way caddahay xalaashu waa ma'muur inaad cuntid baa lagu faray ina allaha طayibu walaa yaqbalu ila طayiba waina allaha amara اlmu'miniina bima amara bihi اlmursaliin ilaahay wuxuu ambiyada faray buuna iyo rusushii buu faray dadka mu'miniinta ahna oo waa maxay yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min aطayibaati wacmaluu صaalix ya ayuha الrusulu kuluu min aطayibaati wacmaluu صaalix ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati ma razaqnaakum war cuna oo caba waxa ilaahay xalaal yeelay rusushii iyo mu'miniintii labadiiba waa isku amr weeyaan qofka marka inuu ka xishoodo inuu xaaraam cuno sideedaba waxay ka mid tahay xishoodka ilaahay subxaanaه wa tacaala inaad xaaraamtii xagga iska dhigto ood iska ilaaliso waa nooc tusinaya qofkaasi inuu ilaahay ka xishoonayo subxaanaه wa tacaala inuu dhagaysto waxyaabaha aanan habbooneyn shareecada islaamka waa nooc min alxayaa weeyaan lianna waxa ku kalifaya qofka inuu iska ilaaliya waxyaabahaas waxay tahay xayaa min allah wailaa qofka hadduu dhegta u raariciyo
oo uu qofku raaraadiyo oo uu doondoono waxay ku tusinaysaa xishoodkiisa inuusan yarayn wa ficlanna waa dhab weeyaan maxaa yeelay qofka markuu qiila waqaala sii raadiyo ee uu majaalisteedii tago ee meelaha uu fadhiisto oo dhagihiisu waxaa ku duxaan ee qalbigiisu uu buuxsamo maalinta dambe xishood male isaguna intii uu soo maqlay ee qalbigiisa buuxisay unbuu isna ku hadaaqaya min xayaaءi اllahi jala wacala marka waxaa ka mida ilahay xishoodkiisa subxaanaه wa tacaala inaad dhagahaaga ilaalisid waxa ku dhacaya dhagahaaga waxa ku dhacaya inaad iska ilaaliso ilahay xishoodkiisay ka mid tahay subxaanaه wa tacaala nabiguna uu leeyahay salawaatu اllahi wasalaamu عalayh ina man istaxyaa xaqa اlxayaaء waxa weeyaan falyaxfad الra'sa wama waca wاlbaطna wama xawى caloosha iyo waxa ay weelaysay inaadan xaaraamna ku ridin lugihii baa ka baxaya caloosha ee ku yaalla farjigii baa ka baxaya waxaasoo idil inaad ilaalisid ilaahay oga xishoo subxaanaه wa tacaala haddaad ilaahay oga xishooto abaalmarin baad ku leedahay ilahay agtii subxaanaه wa tacaala xadiidka aad garanaysaane fi saxiix ku soo arooray ee nebiga inooga sheekeynaya salawaatu اllahi wasalaamu عalayh saddexdii nin ee godkii kusoo dumay dhagixii weynaa dul fuulay maxaa ka mid ahaa ee yidhi camalkiina saalixa ilaahay ugu dhowaada subxaanaه wa tacaala ninka isagoo ka adkaaday calooshiisa waxay weelaysay ee yidhi xaaraamtii intuu arkay zinadii arkay awooday weliba ilaahay cabsidii oga tegay subxaanaه wa tacaala ilaahay cabsidii oga tegay subxaanaه wa tacaala bal wuxuu ka mid noqonayaa qofka ilaaliya farjigiisa sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ila diluh toddobada ilaahay carshigiisa harsanaya maalinta ilaahay carshigiisa mooye meel kaloo la harsadaa aynan jirin xadiidka fi saxiixayn kuso aroray can abi hurayra radi allahu tacala canhu ardaa aakhirkiisana nebigu wuxuu odhanayay salawaatu اllahi wasalaamu عalayh warajulu dacathu imra'aة data manصabi wajamaali faqaala inii akhaafu اllah ninay u yeeratay haweeney mansib iyo jamaal intaba wixii dumar loogu xilan jiray leh maqsadka xadiidka wuxuu yahay caadatan waxay tahay raggu inay raadiyaan dumarka laakiin ninkan isagaaba lasoo doontay ha la soo doonta ee waxa soo doonanaya imra'atun data mansab wa jamaal qurux dumarka haddii loogu xilan jiray xoolo iyo sharaf iyo qiimi iyo qabiil iyo wixii loogu xiran jiray waxay ahaataba way leedahay dhammaan laakiin maxaa u diiday waxa u diiday waxa weeyaan khawf min allahi jala wacala oo wuxuu ku yidhi inii akhaafu allah xagga iga istaag ilahay baan ka baqanaya subxaanaه wa tacaala abaalmarin ilaahay wuxuu u siiyaa subxaanaه wa tacaala inuu ka mid noqdo sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ila diluh inuu harsado carshiga ilaahay maalinta ilaahay carshigiisa mooye meel kale oo la harsadaa aynan jirin meel kale oo qofka uu harsan karaya ma jirto meeshaa mooyaane idan marka albaطnu wamaa xawa caloosha iyo waxay weelaysay inuu qofku ilaaliyo lugahaga inaadan ugu soconin wax ilaahay kaa xaraam yeelay subxaanaه wa tacaala meel ilaahay xaaraam ka dhigay subxaanaه wa tacala inaadan ugu soconin meel uusan ilaahay raalli ka hayn inaadan ugu soconin walidalika ayaa طalq bna caliy xabiib ibna طalq cafwan ayaa wuxuu ohan jiray raxmat ullahi tacaala caleyh markii la weydiiyey attaqwa ayuu wuxuu odhanayay waxa weeyaan anlaa yaraaka allahu caza wajal inuunan ilaahay kugu arkin subxaanaه wa tacaala min xayثu nahaak meeluu ilahay kaa rabay inuusan kugu arkin subxaanaه wa tacaala inuunan kaa waayin ilaahay subxaanaه wa tacaala meel uu ku amray taa weeyaan taqwada macnaheedu sideedaba lugahaaga inaadan ugu soconin meel ilaahay uusan doonaynin subxaanaه wa tacaala meelaha ilahay uunan doonayninna aad bay u tiro badan yihin iska ilaali ha ugu soconin intaadan aadin isweydii ilaahay raalli ma ka yahay mise kama ah markaasuu nebigu wuxuu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu عalayh waxaa kaloo ka mid a xishoodka ilaahay subxaanaه wa tacaala qodobka saddexaad waxa weeyaan ka koowaad muxuu yidhi alra'su wamaa wacaa wاlbaطnu wamaa xawaa qaybta saddexaad nebigu wuxuu ku sheegay salawaatu اllahi wasalaamu عalayh inay tahay walyadkur almowt
xishoodka ilaahay waxaa ka mid ahba inaad geerida carabka ku hayso wartalo goormay ku imanaysaa goormaad dhimanaysaa goormay sidee kuugu iman doontaa saacaday noqon doontaa inuu qofku ka walwalo mar walbaba qalbigiisa ay ku taaganta geeri inuu mar walbaba ay qalbigiisa ku taaganta oo taa maxay keenaysaa waxay keenaysaa wax badan oo ahaa qofka inuu u hanqaltaago adduunyada inay ka celiso wax badan oo aan ilaahay raalli ka ahayn oo qofku uu samayn lahaa inay ka hor istaagto wax badan oo maalaa yacni qofku uu ku dhaqaaqi lahaa inay xakamo oga noqoto nabiguna calayhi salaatu wasalaam geerida aad buu inoogu tirtirsiiyey akhiru dikra haadimi ladaat kan macaaniyada kala geynaya xusuusashadiisa badiya warbadiya nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxa weeyaan liyadkur ilmawta walbila balaayada ka dambaysa geerida naf ahaanteeda oo la xusuusto bal suuradayso adiga oo maanta sanduuqa halkan inoo yaala lagugu ride waa adiga ah masaajidkeennan bayna tahay qisadu aayar baan albaabkaa lagu furay waa lagu geliyey meel halkaasoo friij ahoo yar qaboojiye ah baa lagu dhex dhigay dadkii aada la hasaawi jirteed la sheekaysan jirtay halkanay joogaan waa iska sheekaysanayaan warkaama hayaan qabow baa kugu baxaya qabowga adigu faa'iido ku yahay annagana faa'iidu noo yahay inaadan dibirin oodan dilaacin baa loogu talagalay cadaabna weeyaan dhanka kale ma hadli kartid wax ma sheegan kartid war wax ii sameeya ma ohan kartid war waxaasaan damacsanaayo dhinacayga si iga ahaaye ii dhammaystira ma ohan kartid wax aad hadli karto oo waxaad sheegan karta ma leh waa laguu imanayaa aroortii markuu waaga bariyo dharkaa lagaa dhigaya waa laguu dhaqayaa lagu qabaynaya daaqadaa meesha noo yaalla kuwii baa lagugu xirxiraya ha lagugu xirxire sanduuqii baa lagu soo gelinayaa halkanaa lagugu tukanaya intaa wax aad og tahay oo awood aad u leedahay ood samayn kartaa ma leh balaayaa ka dambaysa mawdka aayar baa lagu qaadayaa qabrigaa lagu dhigayaa marka lagu dhigana halkaasaa lagaaga soo ambabaxaya waa adiga iyo camalkaagii un ilaahay waxaa subxaana wa tacaala aad la hortegaysid waa camalkaagii wax kalood la hortegaysa male ilaah hanti iyo xoolo waxaad lahayd ka soo tagtay haween iyo carruur ka soo tagtay aabbi iyo hooyo iyo qaraabi iyo tol ka soo tagtay waxa maanta intaa beddelkeedii kuwa waa camalkaagii oo keliya marka nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xishoodka ilaahay waxaa ka mid ahba qofka inuu taa xusuusto indhihiisa uu hor keeno saacad walbaba inay intaa hor taaganta markaad ilaahay hor tagtana subxaanahu wa tacaala qabriga lagu dhigana munkar iyo nakiir iyo wixii ka dambeeyey nebiga inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ayaa imanaya waa dhammaaday idaa maata bna aadama inqataca camaluhu camalkaagii waa go-ay wax dambe oo kuu sii soconaya ma leh ilaa asnaaftii nebiga inoo sheegay mooye salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka ilaahay xishoodkiisa waxaa ka mida subxaana wa tacaala qofka inuu xusuusnaado geerida iyo balaayada ka dambaysa nacam balaayaa ka dambaysa balaayo aan sahlanayn ahba weliba markaasuu nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waman araada alaakhirata taraka ziinata alxayaati addunya qofka doonaya aakhiradii wuxuu ka tagaa adduunka dhaldhalaalkiisa dhaldhalaalkan adduunyada iyo macmacaankeeda iyo waxaan oo dhan waa ka fogaadaa maxaa yeelay waa laba xarago weeyaan waa laba qurux dhaldhalaal ah oo saacado ah maalmo ah hadday u badato sanado ah aanan sii soconaynin iyo mid daa'im ahoo weligeed ahba tan adduunkaa haddaad ku qanacdo oo aad tiraahdo iyadaan doonayaa tan aakhiro waa kaaga dhammaatay tan aakhiro haddaad doonaysid laakiin ta adduunka inta lagaaga qoray waad helaysaa aakhirana waad helaysaa sida ilaahay bay qur-aanka in badan inoogu sheegay subxaana wa tacaala idan nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qofka doonaya ziinada aakhira wuxuu ka tagaa tan adduunka markaasuu nebigu wuxuu kusoo gebagabeeyey xadiidkiisa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh faman facala dalika faqad istaxaa min allahi xaqa alxayaa
أنت أن صو شيء قفك يلبو يري النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بو كحشود حشود كيسر نبتة حشودك إلهي النبتة حديث كاسو كليه إن وقفك مدحيسي يوح الله لوحي حبنها أها مدح كويا لأردن إلاليو عربوا إلالينا يا أفكي هنقري عروشي وحي قارئ حقا أسي قد بالهابو إلالينا يا إنه سيبو إلالينا يا دقيه سيبو إلالينا يا جيركي سي قيبتها مدحا أردن بو إلالينا يا عروشي يوحي أي ويليسي أردن بو إلالينا يا هدو فرجي نقول لها هدي لغيه نقول لهايين هدي عروشي نقول لهايد وحاسو إذل بو إلالينا يا arrinta saddexaad waxa weeyaan geeridii iyo wixii ka dambeeyay balaaya ayuu xusuusnaanaya oo qalbigiisa ku taagnaanaya mar walbaba ogowna geerida qofka xusuusashadeeda badiya adduunka iyo dhibaatadiisa oo dhan waa ka raaxaysanaya adduun waa ka raaxaysanaya adduun wuxuu dhib ku hayaa qof aan geeri ogeyn walidaalika dadku siday u kala iimaan daciifsan yihiin adduunkana ta'thiir ugu kala sameyn ogyahay adduunkana uu ta'thiir ugu kala sameyn ogyahay qofka kullama geerida uu xusuusashadeeda badiyo waxaa lumaysa raqbadii jacaylkii badnaa dhibaatadii adduunka ay ku saameyn lahayd waxaasoo dhan baa yaraanaya amhaasheedana aad bay u tiro badan tahay amhaasha arrinta iyadaana aad bay u tiro badan tahay bal waa shay waaqica maanta aynu arkayno indhaha aynu ku hayno dadka aynu la noolnahay innaga nafteenna aynu arkaynaba si inoo saameynaysa qaybta kale nabigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxa weeyaan qofka aakhirada doonaya wuxuu ka taga waa ziinada adduunka intaa qofka la yimaada afartaa qodob xadiidka uu tilmaamay wuxuu yidhi ilaahay buu ka xishooday xishoodkiisa dhabta ah ilaahay buu ka xishooday xishoodkiisa dhabta ah ayuu nabigu oranaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka isaga ahna waa saxiix weeyaan ووحى ورينيي إمام أحمد بن حنبل في مسنده ابن أبي شيبة مصنف كيسو كورينيا إمام الترمذي سنن كيسو كسو صار يا أبو يعلى في المسند حاكم مستدرك كيسو كورينيا بيهقي سنن كاشيخ ناصر نوى حسني رحمة الله تعالى عليه في صحيح جامع الصغير وحتى لم يداه أحاديث بدن أو لقورينيا حديث كاس لما عناه أبو بكر الصديق بالقورينيا عبد الله بن عمر بالقورينيا waxaa laga warinayaa saxaabo kale oo tiro badan oo sidaasoo kale nabiga ka warinaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xaka bnu cumayr baa ka mid a ummina caaisha ka mid a wagayri dalik ay leeyihiin dhammaantood nebigaanu ka maqalnay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh afartaa qodob isagoo ishaaraya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sidaa darteeda marka xishoodku waa wax la isku waaniyo lays amro war xisho ilaahay ka xisho addoommada ilaahay wan wanaagsan ka xisho in lays yiraahdo حديث في الصحيحين كسو أروري عبد الله بن عمر ورينيي بل أمهات ستة ورينيا أيا وحو أورانيي رسولك عليه الصلاة والسلام باوحو صومرين رير أنصاريد ولالكي كوانين يا حشوتك ورمحيتها حشوتك ورواسي دي يوحي اللميته مركز النبي وحي صلوات الله والسلام عليه ولالكي بكوانين يا حشوتك ننكن رسولك عليه الصلاة والسلام بامركا وحو كيري دعه فإن الحياء من الإيمان والناف بو كيري النبي صلوات الله والسلام عليه كوانين حشوتك حيال حشوتك إيمانك كمدية حشوتك سيدي سبا إيمانك كمدية هبير النبي عليه الصلاة والسلام رواية دوح الله إذا حديث كلا بخاري ومسلم يورينا عمران بن حسين أبو المنذر رحمة الله تعالى رضي الله تعالى عنه أما رضي الله تعالى عنهما مالين مالمها كم إذا isagoo ka hadlaya xishoodkii iyo nin la oran jiray Busheer ibn Kacab reer Ansaareed isaguna ayaa wuxuu hadallo kale ku soo dhex tuuray aad buu uga xanaaqay markaasuu wuxuu tilmaamay Imraan ibn Husayn xadiidka nabiga kaleey salaatu wasalaam laga warinayo oo wuxuu oranayay waxaan maqlay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oranaya al-hayaa'u la ya'ti illa bi khayr xishoodku lama yimaadaba illa wanaag mooye wax kale xishoodku sidiisaba waxaan wanaag ahayn lama yimaadaba xishood xumaan keena lama sheegin macnuhu sidaas weeyaan cagsigeedu muxuu noqonayaa xishood la'aantu waxay keentaba waa shar weeyaan wax khayr ma lahaba xishood la'aantu qofku iska il adkaada ana waxba ka sariiganaynin xishood la'aantu sideedaba khayr ma leh xishoodkuna khayr baaba ka buuxaba dhammaantii sidaas yiri nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh
بل رواية إمام مسلم ولك لي بحديث كعمران بن حسين وحكو رنيه الحياء كله خير كله حشوتك دمانتيبا وخير ويان خير كله سيدو أدن يهيبا وخير ويان حديث أبو هريرة أورنيه أمهات ستة أي سو صاريان أي النبي عليه الصلاة والسلام وحكوت المام حشوتك بوسك وكل يهي قفك مسلم كأه جنة دي سي النار تي سبب النبي عليه الصلاة والسلام حديث كإساقا وحكوت المامي إن يهي حشوتك إيمانك إنو كمتي ووحو أرنا يا رسولك عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان حشوتك وحو كمتي هاي إيمانك والإيمان في الجنة حشوتك وإيمانك قيب كمتة إيمانكنا سيدو أدن يهي جنة أحاضيبا معنى هو محي قفك حشوتك بدن إيمان بوليه قفك هدو إيمان ليهينا جنة قليا شكي ماله dhanka kale xishood darridu iyo hadal badnidu iyo hadalka foosha xun oo laysaga hadlo oon looba fiirsanin dhibaatada ay leedahay dhowr nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu oranaya walbadaa'u min aljafaa waljafaa'u fi nnaar albadaa'u waxaa la yidhaahdaa badaa bimacnaa waxa weeyaan kelimada xun oo lagu hadlo ereyga aanan wanaagsanayn hadalka aanan wanaagsanayn oo qofku isaga hadlo sideedaba waxay ka mid tahay min aljafaa waljafaa'u fi nnaar isna naartu ka mid yahay xaggeedu ahaaday naartu gudaheeda ahaaday idan qofku waa inuu is-ilaaliyo weeyaan xishoodku iimaankuu ka mid yahay iimaankuna jannadu ahaaday dhammaantii qofku aanan xishoonin oo wuxuu doono isaga hadlaa waa min aljafaa jafaa macnaha waa goyn weeyaan waa ingeyga qofka qalbigiisa uu ingego arrintaana waxay ka mid ahaatayba naartii buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh arrintaana waxay ahaatay naartii sidaa darteeda waxay tahay qofku inuu is-ilaaliyo carabkiisa waxaa ka soo baxaya taa waxaa la mid a xadiid nebiga calayhi الsalaatu wassalaam ku sugan fii musnad alimaam axmed wamusnad caliy bn aljacd uu ku warinayo musanif bn abi shayba imaam abidunya ابن أبي الدنيا وحكورنا في كتاب الصمت الشيخ ناصرنا وصحيح يالي في صحيح الترغيب والترهيب النبي صلوات الله وسلامه عليه وحكورنا يا أبي أمامة صدي بن عجلان كالأورنجري الباهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحورنا يا النبي صلوات الله وسلامه عليه الحياء والعي شعبتان من الإيمان حشوتك هي هذا الكيري عيقا وهذا الكيرا وقلة الكلام هذا الكيرا وحي كمد يهين إيمانك بو يري نبيك صلوات الله وسلامه عليه قفك حشوتك بدن هذا الكير حشوتك سوى بدن يهي هذا الكيسوى ير يهي إيمانك كمد من أهل الإيمان ويان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق قفك أن وح وكسر ريقان يجرين هذا الكوح دون يسقى الله هذا النبضن مع ذلك البيان معناه فصاحة إسكت دون رادية هضلة مجالستي مال الله لما شدتك يسكوي ماذا ساسو تركت هذا الكوجو هيا قفك النوع أهنا وحول النبي قرنا يا صلوات الله والسلام عليه ومن النفاق النفاق ويان تامعني هذا وحي تهاي قفك إنه حشوتك وحي إلهي كسيين وكسيين وحونني إلهي كسيين إن أين إسكت دون تيد وهذا الرادي سيد حيا لي لبضع نوع ويان حشوتكم إما إناد كسبته وعاد شقيزتيد وأديك عاد سكوك كلفتيد إلا وغريزة إلهي كوكو أبوري النغضو يمد إلهي كوكو أبوري سبحانه وتعالى لبضع مد ويان النبي يقول عليه صلوات الله وسلامه عليه الحياء والعي قلة الكلام هذا الكير هذا اليرذ لبضع من الإيمان شعبتان من الإيمان لبع على مضاد يا لبع قيبوت أو كم إذا إيمانك ويان إيمانك قيبيه سيب كمدي البذاء والبيان البذاء وهذا الحميدي بيان كنا وهذا البدندي هذا الحن ولبا بدن واللي سقاه الله أما هي هذا أما حبضنا هذا الكحوني وحونا أحسن ما شرع الإسلام
هذا الكيول لبضيو حدنا هذا الحن لغو هذلا وشعبتان من النفاق لبع على مضود ويان أو كم إذا على مضاها النفاق واللبع قيبود أو كم إذا قيبها النفاق تلمامها النفاق اللغو يقاني منافق لماذا كمت لأن النبي يقول حينو إشارة صلوات الله والسلام عليه إنه إيمانك قيبة بدن ليه الإيمان 69 شعبة الإيمان 70 شعبة فأعلاها أفضلها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق حديث كان وحا لغا قادنا يا أوكله هذا إنه كجرنه وإنه تلمامي إنه إن نفاق يا منافق نمضنا قيبة بدن إلا ذا وحلم إذا حديث كي 4 من كان فيه كان منافقا خالصا 3 من كن فيه من وجد فيه وجد شعبة من النفاق أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم قيبها منافق نمضنا إني بذنيهين علامات كان لقوا يقانا منافق نمضا وحا كمذا هذا الحن قف كأنه هذا الكيس ويهي هذا الآن وناكسنين إيا إنه هذا البدن يهي هذا البدني إنه اللي يهي آدو هذا البدن يهي يظنه تانا وحي كمتهاي علامات كان لقوا أي كمتها يظنه marka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa in la iska ilaaliyo aad iyo aad la isaga ilaaliyo waxa la mid ah arrin kale oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ka hadlay oo nin la oran jiray Qurra ibn Iyas al-Muzani isagoo xadiidkan saxaabi can saxaabiyin la leeyahayna uu jira iyadoo Qurra ibn Iyas al-Muzani laga warinaya jira turuq aad u kala duwan buu ku soo arooray rasuulka kaleey salaatu wasalaam baanu maalin wuxuu yiri agtiisa fadhinay markaas waxa laga sheekeeyay xishoodka markaasay waxay yiraahdeen saxaabadii qulna ya rasuul allah alxayaa min ad-diin rasuulka allah xishoodku diinta alluba kamid yahayba xishoodkii baa la isku soo qaadqaaday nabiga la fadhiya salawaatu allah salaamu alayhi waxa ka hadlaya waa saxaabadii ridwaan allah ta'ala alayhim ajmaciin waxay oranayaan waa maxay rasuulka allah xishoodku diinta allu kamid yahay alxayaa min ad-diin qulna ya rasuul allah alxayaa min ad-diin rasuulka allah xishoodku soo diinta ilaahay kamid ma diinta allu kamid yahay nabigu wuxuu yiri salaatu wasalaam bal huwa ad-diin kullu inuu diinta alla kamid yahay qayb kamid yahay ma ahe isagaaba diinta ilaahay oo dhanba ah xishoodku isagaaba diinta ilaahay oo dhanba ahba maxay yeelay qofku markuu yiraahdo la ilaaha illa allah macnaheedu waa inuu ilaahay ka xishoonayo subhanahu wa ta'ala وسيأقو حشونيا الضنم نفتيس أقريا ربنا رب النمو أقريا إلهي بك حشوني سبحانه وتعالى رب النمو أقري نفتيسنا ذلي وحي أقري الضنمو ضبذنا وحي كانت تاسي إنه ربي عابده سبحانه وتعالى مدحي سنتولول كان لقاء يراهدو سبحان ربي الأعلى إنه ربي انتو هر استاقا يراهد إياك نعبد وإياك نستعين دينتو أردنبا وابا حشود ويان نعم نبي يقول صلوات الله وسلامه عليه بل هو الدين كله إسقى بالدينتي أردن بأه بحشوتك دينتي أردن بإسقى حشوتك مركز يوحي كوي هذين صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مركو النبي عليه الصلاة والسلام سيدا يرأي يوحي الراعيي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيري إن الحياء والعفاف والعية والفقه من الدين وحير النبي عليه الصلاة والسلام حشوتك إيه دور سنانته عفافك وإنه دور سنانته قفك الله لو حن وناك سنين ودن كدور صدا الله لو حن وناك سنين ودن والله كدور صدا لسك إلى عليه هذا الكأو يراده دينت إلهي أول فهمه وكرر دينتو كادا دكته نبي وحيري صلوات الله وسلامه عليه انت صبا ودين تألويان من الدين فالفير هذا حشوتك عفضي دور سنانتي عربك أقول دور سنادا إنها أقول دور سنادا لونت هذا وحمري أقول دور سنادا علوش هذه أقول دور سنادا لقاها أقول دور سنادا فرجك أقول دور سنادا أديك أقولن أو وضع إلى شن عفضي النوع ساهيد عيق هذا الكيرا قلة الكلام هذا الكاغو أو يرادا آدو يرادا هذا الكائن أو يرادو
waynu tilmaanay man kaana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran maxaa la yidhi aw liyasmut hadalka haba yaraadee in hoos loo dhigo oo qofka markuu hadlayo uu hadalka hoos u dhigana way wanaagsantahay walidaalika culimmadu waxay ceebeeyaan qofka inuu aada u qayliyo markaad hadlayso kaanamaa khatiib oo kale inaad noqotid hadalkaagu dhaadheeraado waa laga wanaagsan yahay maxaa yeeley ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha uu ceebeeyey bay ka mid tahay fi lqur'aani alkariim ina ankara alaswaati maxaa la yidhi la sawt alxamiir sawdka camiirkana waynu naqaanaa siduu yahay hadalkaaga inuu aada hoos u dhigtid khafdu sawti la sameeyo waa min addiini weeyaan diinta allay ka mid tahay subxaanaه wa tacaala qofka ilaahay siiyey subxaanaه wa tacaala codkiisu iyo qaraaxadiisu ay aada u dheer yihiin ee aan takalluf iyo aynan ku ahayn dhib ma leh sidii صaxaabada ridwan اllahi haabit bn qays bn shmas qisadii fi ya ayuha aladiina aamanuu la tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy wla tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacdi an taxbita acmaalakum waantum laa tashcuruun aayadda markay soo degatay buu yidhi anaa la iila jeedaa maxaa yeelay kana jahwariya sawt isagana ma ahayn qisaduna macruuf weeyaan waa saxiixna laakiin qofka kale inuu isku kalifa maaha weliba meelaha loo baahan yahay amaakinta in codka hoos loo sii dhigo waxaa ka mid ah amaakinta ilaahay subxaanaه wa tacaala dikrigiisa lagu hayo ama salaad ha noqoto ama qiraa'at اlqur'aan ha noqoto ama duruus diineed oo la qaadanaya ha noqoto lianna waa min xayaa illahi jala wacala waa min tacdiim illahi jala wacala ilaahay weynayntiisa iyo xishoodkiisay ku tusinaysaa iyadoo qofii tukanayo qofna halkaa qur'aan ku akhrisanayo inaynu bannaanka daryaankeenni lala joogi la-yahay waxay calaamad iyo tilmaan u tahay kii tukanayey iyo ciddii u tukanayay inaanan xurmo loo haynin ka qur'aanka akhrisanaya iyo wuxuu akhrinayana inaan xurmo loo haynin macnaheeduna wuxuu noqonayaa sidii munaafiqiintu ay yidhaahdeen aayaddii fii suura maka ku soo degtay markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qur'aanka akhrinaya salaad tukanayo munaafiqiintii ee kaafiriintii qureysheed baa waxay yidhaahdeen walqow fiihi lacalakum taglibuun ku buuqa oo ku qayliya inaad ka qaalib noqotaan maxaa yeeley maa jacala allahu lirajulin min qalbayni maxaa la yidhi fii jawfi qofkan salaad buu ku jiraa adkaar buu haystaa qur'aan buu akhrisanayaa haddaad ka garab qaylisid wuxuu isagu sheegayey iyo dikrigii u akhrinayay war uma hayo qalbigiisuna ma xambaari karayo ilahay ha laga xishoodo subxaana wa tacaala masaajidada buuqiya qaylada ha laga daayo qofka samaynayo ogow ilahay kama xishoonaysid subxaana wa tacaala ilaahay kama xishoonaysid bal xurmo uma haysid ilahay subxaana wa tacaala ilaahay xurmaad u haysaa male subxaana wa tacaala waxaad leedahay ilaahayow gurigaagii baan ku qaylinayaa qofkii qasamtu الصalaaةa bayni wa bayna cabdi xadiidka fi صaxiixi muslimi can abi hurayra radi allahu tacala canhu ardaa rasuulku u ohanayay qaala allahu caza wajala qasamtu الصalaaةa bayni wa bayna cabdi walicabdi ma sa'l anigaa iyo addoonkaygii baa salaada qaybsannay oo waa maxay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin markuu qofku yidhahdo rabbi wuxuu yidhahdaa xamidanii cabdi ilى aakhir xadiidka muxuu odhanayay qofka markuu dhaho ihdina الصiraaط almustaqiima siraaط aladiina ancamta calayhim gayri اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin rabbi wuxuu yidhaahdaa hada licabdi walicabdi ma sa'l addoonkayga weeyaan tanina wuxuu weydiistay waa isagaa iskale idan addoonkani ilaahay buu la hadlaya subxaana wa tacaala munaajaat weeyaan bayna allahi caza wajala wa bayna cabdih ilaahay iyo addoonkiisaa wada hadlaya adigu hadalkaagan maxaa soo dhexgeliye buuqaaga iyo qaylada maxaa soo dhexgeliya xurmo darri weeyaan xishood la-aan weeyaan idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta marka waxaa doonta samee nebigu wuxuu leeyahay salawaatu اllahi wasalaamu calayh xishoodka iyo dhowrsanaanta hadalyarida iyo fiqha fi ddiin diinta alle oo la fahmaa waxay ka mid yihiin diintii dhammaantooda diinta alley ka mid yihiin subxaana wa tacaala diinta ilaahay waxa ugu fududna waxay tahay ee in la fahmo mudan qof salaad tukanaya oo laga xishoodo laanna ilaahay buu u taagan yahay oo baryayaa xurmada aada xurmaynaysa in ilaahay kugu xurmeeyaaba dhici karaysa subxaana wa tacaala
xurmada aad xurmaynayso qof salaad ku jira ama qur'aan akhrisanaya in ilaah adna kugu xurmeeyaaba dhici kartaba wayna dhacaysaa shaki ma laha sidaa darteedu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayey xadiidka gebagabadiisa iyo aakhirkiisa aynu tilmaamayno ayaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku odhanayay qofka aakhira doonaya ee intaa sameeyaa aakhiradiisana way anfacaysaa adduunyadiisana wax badan ka nusqaamin mayso intaa adduunyadaadiina wax kaa nusqaamin mayso aakhiradaadina waa ku anfacaysaa wanaag iyo khayr bay kuu tahay way kuu ziyaadinaysaa aakhiradaadii adduunyadaadiina way kaa nuqsaaminaysaa wax allaal wixii xumaan oo dhan bay kaa nusqaaminaysaa wax khayr oy kaa nusqaaminaysa ma leh laakiin waxa ay kuu ziyaadinaysaa aakhiradii baa wuxuu ka badan yahay waxay kaa nusqaaminaysaa adduunyadii xadiidka nebiga salawatu llahi waslamu aleyh saasuu ohanayay xadiidka isagaana waa saxiix weeye sheekh nasirna waa saxiix yeelaya fi saxiix jaamic sagiir waxaa la mid ah cabdullahi bn cabaas iyo yaziid ibna maazin nin la ohan jiray fi muwaطa imaam malik wagayri dalika xadiid duruq badan buu kusoo arooray can الصaxaaba ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin waana saxiix weeyaan abi ayubin alansaari baa sidaasoo kale warinaya rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu odhanayey ina likuli diinin khuluqa diin walba akhlaaq bay leedahay diin walba waxaa jira shay ay kaga duwan tahay adyaanta kale diinteennu maxay kaga duwan tahay diimihii hore nebigu wuxu yhi alayh الsalaatu wasalaam ina likuli diinin khuluqa diin walba waxay leedahay akhlaaq wa khuluqu اlislaami alxayaa islaamka akhlaaqdiisu waa xishood weeyaan waa xishoodka diinta islaamka waxaa cinwaan u ah diin walba cinwaan bay leedahay cinwaan waxaa u ah islaamka xishoodkii baa u ah ina likuli diinin khuluqa taa macnaheedu waxay tahay aayaddii fii suurati اlqalm ku jirtay ee nebiga calayhi الsalaatu wasalaam lagu yihi wainaka lacalaa he khuluqin cadiimin macnaheedu in ay tahay wainaka lacalaa xayaaءin cadiimin xishoodka nebigana calayhi الsalaatu wasalaam wax la koobi kara ma ahayn axaadiidta ku soo aroortay aad bay u badan yihiin ina likuli diinin khuluqa diin walba waxay leedahay akhlaaq cinwaan lagu yaqaano diinteenna cinwaanka lagu yaqaano nebigu wuxuu leeyahay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh waa xishoodka weeyaan xadiidka isagaana waa saxiix weeyaan oo waxaa warinayay imaamu darami raxmat اllahi tacala caleyh طabarani fi mucjam اlkabiir ayuu kusoo saarayaa waxaa kaloo warinayay imaam abu nucaym fi kitaabihi اlxilya bayhaqina fi shucab اliimaan iyo suna اlkubra intaba waa ku warinaya sheekh naasirna waa saxiix yeelay raxmat اllahi tacala caleyh cabdullahi bn cumar baa wuxuu odhanaya rasuulka ayaan maqlay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh isagoo odhanaya alxayaaءu wاliimaanu qurinaa jamiica faida rufica axaduhumaa rufica alaakhar iimaanka iyo xishoodku waa xiriir weeyaan waa la wada lamaaniyey waa xiriirsan yihiin way isku xihan yihiin xarig baa isugu xihan nebigu wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh faida rufica axaduhumaa midkood haddii kor loo qaado qofka laga waayo rufica alaakhar ka kalena waa laga waayo ida lam tastaxyi fasnac maa shita waa taas wey macnaheedu marka laba shay baa isku xihan xishoodkii iyo iimaankii baa isku xihan waa la isku guntay buu leeyahay nebigu salawaatu اllahi wasalaamu caleyh waa laba shay oo xarig uu ka dhaxeeyo midkood haddii la waayo oo la rafciyo qofka laga rafciyo ka kalena waa laga rafciyey ida rufica axaduhumaa rufica alaakhar ka kalena waa la rafciyey xadiidka isaga ibn abi shayba warinaya imam الbukhaari fi kitaabihi اladab buu ku warinayey waxaa kaloo warinaya imaam moxamed bn nasr almarzi fi tacdiimi qadr الصalaaة xakim mustadrikuu ku warinaya waana saxiix yeelaya wuxuu leeyahay صaxiixu calى sharطi الshaykhayn abu naciimna fi kitaabihi اlxilya imam اlbayhaqina fi shucab اliimaan xadiidkuna صaxiix weeyaan can rasuuli اllahi salى اllahu عalayh walih wasalam walidalika saxaabadu waxay ahaayeen ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin kuwa xishoodka aad oga hadla cumar bn khaaab baa wuxuu odhanayay man qala xayaauhu qala waracuh waman qala waracuhu maata qalbuh qaswat lqalbi ama qalbiga oo dhintana waa laga soo hadlay qofka xishoodkiisu yaraado waxaa yaraada xalaal miiradnimadiisa xalaal miiradka iyo xalaal qudashadiisii baa yaraanaysa xayl marka horeba ilahay ka xishoon maayo subxaana wa tacaala allaala wuxuu arku yaa shaqo u ah
حرام بك حشون مايو وحي أهاتب قفك حشود كيسو يراضو حلال قودة كيسا يرانيا قفك حلال قودة كيسو يراضانا عمر وحو يري ما تقلبه قلبي كيسا دمانيا لأن قلب حلم دي هي سيدة جيت كبحية جيت هدي بيئة أنا نظيفة هنا وسخ الله ورابية كور بيو وسخ الله ورابيو بيئة نظيفة هنا الله ورابية ودمانيا سيدا صو كلويا قلب الله ورابينا يا حرام إن خشوع إلهي اللي قصدوا سورة قلمة قفك حيشود أنا لهينا وحين نقونيسا قلبي جيسين ودنت الإيمان والحياء قرنا جميعا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبض حرير بكر دحيا إذا رفع أحدهما رفع الآخر ككلنا ولا رفعنا يا قول كان عمرنا ماشى سكسو جيدا وكفهمي وولي هي قفك حشود كيسو يرادا حلال قدد كيسا يراني ما قفك حشود لقواي هدو يرادا بحشود كاغو ورعاقا يراني هدو ورعاقو يرادنا خلاص ويان قلبك قاعد دمانيا إمامنا أبي الدنيا بكلام كوريني في كتابه مكارم الأخلاق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحورني من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله عز وجل قفانا ضدك بكحشونين إلهنا كحشون معي سبحانه وتعالى إن ترى أنه إلهي وكحشون يا محادتك إيجا قال ما بل النبي عليه الصلاة والسلام حشود كيسا وحوها الضومة إلهنا وكحشون يا ربي سنة وكحشون يا جل وعلا إلهي والقرآن كي إنه شيء إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحييها منكم إذن كصحابة إذن كحشونية حديث في صحيح مسلم كسر عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وين ذي وجديني سي النبي صلوات الله وسلامه عليه سيدا لو قبي سنة يا حيدك واتيتر النبي وكحشودي صلوات الله وسلامه عليه أدبي وبدنتها مواقف النوع عصو كلا النبي مرتي صلوات الله وسلامه عليه إذن عبد الله بن مسعود وحو ليه من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله قفان بن آدم كبكحشونين إلهنا كحشون مايو سبحانه وتعالى إلهنا كحشون مايو ولذلك وحي أهايان سلف هذه الأمة كوا كلمة ذكر نحلي فضيل بن عياض باوحي أورانيي زمن كإمام الشافعي بن فضيل بن عياض كهريي تقريبا سفيان الثوري بيسكو زبن هايان فضيل بن عياض باوحي أورانيي شن علامات وحي كم تهاي قف كان إنه يهي قف شقئة وأنا خير لهين ودردر صدي الدنيا آخرة علامين كاللقوا يقانو شن شيء ويان قف إنه خير لهين وحا كتسينيا شن علامات ويان ووامحي وحي أورانيي القسوة في القلب وحا أقوه الرئي وإنه قلبه إنكاقية ما أنت ردن إلهي سبحانه وتعالى آيات كيس هدير لغو أخرين وحكدا دقيا مله فردقوا وكعيا هدو بنان كإستاقنا وكأنما إنا وحوى كد حنبا وحوى اللو شيئين بلميده قسوة في القلب وجمود في العين قضب كاللبات وحويان إشي سو إنجكتبه إلهي حقي إني أوهين أغتي ما دلقما بيابا أدون حنونجية ويا الكذا هذا حق إلهي إنه حنون صدا ودمري يعني قلبي يسو خشوع عبر لقما بيابا أدبا نقول بدنا هاي صفة عنك قلبي إنجيجة يقفك اللي بين نوجا إيمان إلهي درتي سبحانه وتعالى ومضى أن أدبي يقول بدنت مره هذا نوات المات هي اللويا حيالي قفك إلهي أويا سبحانه وتعالى فوائد بيلا ذا وحكم إذا حديثك إنه صوت المام إني إن النقض قف كاسي إلهي دتك مرتد وأمالنت قيامها مالنت إلهي عرشي يسمو يملك الله حرصد عين جرين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حكم لها ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه قف إلهي سبحانه وتعالى حصوصتي عظمة سي وين كيسة مال الله إسقوا مريا قرجي هجوجا مال الله هجوجا كلجي مالين يهبين وحي أهاتها ساعات كأفر لواتنك ساعة كم ذا إلهي حصوصتي سبحانه وتعالى كدبنا المية هو المية يوائي وإلهي سبحانه وتعالى عين بكت من خشية الله جل وعلا هديتها لو وايو قسوة في القلب ويان وجمود في العين إشيو إن كتبه أبرة وحبا أين كصوبة قوئين به وقلة الحياء
قضب كسدحاد وحويان كتسين يقف كان إنه شقي هي خير أو دنب أونا اللهين حشود يري ما هي حشود دنب ملهبة حشود يري قضب كأفراد كتسين وحويان والرغبة في الدنيا أدونك جعلك وقبه meel walba oo loo galo waa u gelayaa meel walba oo loo marana waa u marayaa qodobka shanaadna waxa weeyaan tuulul amal yidi dilo dheer baaba ku jirtaba geeri baaba maba yaqaanaba qodobka geeri la yiraahdaba isaga uguma tirsanaba noloshiisaba uguma tirsana geeri baa kugu imanaysa iyo waad dhiman doontaa iyo goorma weeye iyo maxaad u diyaarsatay iyo qodobkaasi taariikhda uguma tirsanayso noloshiisa لذلك ayaa أهل العلم قيبة كمذا وحي أرنيين قفك هدو دونيو حشود كيسين وكور أقاضو أحيو الحياة والحشود كالنولية ومحاد قول نولين إيسان بمجالسة من يستحيا منه هنا الله فرليستان ضدك لغا حشونية ومحي كين إيسا قف ضدك إيكا حشودان مدك الله فرليستو أديك وحشونية سوما ها ضدك أهل الورعة إلهي سبحانه وتعالى أهل كيسة أهل القرآن أهل السنة أهل العلم فرقوا ذا هداد بدسطو إلهي باتك حشون إيسا سبحانه وتعالى حشود كاقو سروا وكعية لكن كوا سلوا أحيلا بيسكا هذاك ما أنت سوما وحي ورنجرين مركا أحيو الحياة والحشود كينا النولا يسرق وقاذا واحد كن نولين إيساننا هالنقضية مجالسته أهل العلم من يستحيا منه وعمارة القلب قلبنا كعمر وكبوحية بالهيبة والحياء إلهي سبحانه وتعالى هيبة أتكهيبة سنيسان إيا حشوت انت بقلبك إنك كعمر حيا ليها دي قلبك انت لقوا يوحي أرنيين لم يبقى منه خير قلبك هدي انت لقوا وح خير أهو كهر يا مله إن بهيراته ولذلك أي معبد الجهني رضي رحمة الله تعالى عليه تابعي بوها من تلامذة عبد الله بن عمر بكمدها حديث كيسونا في صحيح مسلم ويان رواية أكورنا يا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يا وحي أرنا يا مركو فسير بقوله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير أيضا أي وحي أرنا يا ولباس التقوى وحلو لجذ الحياء حشوت كويان لباس التقوى ذا إلهي تلمام يدرك عبسد الله إلهي يقول لي هي لبست كاسا إذين رامل لبس كأدونك دركن عادي كاسا إذين كجا خير بدن للي هي ولباس الحياء ويان درك حشود كويان كاسا مدن مركا إن لحرته لباس كإسقى قفك حرتنا أدوننا وكوبد بادية آخرنا وكوبد بادية الله سبحانه وتعالى وحن كبرنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم إنه إن قدق كو إلهي كحشوذ سبحانه وتعالى حق الحياة وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.